ninkii DJ Lusa ahaa taqaanaan oo haatan Yurub ku sugan ayaa bamba weyn soo tuuray bamba weyn ayuu soo tuuray wuxuu sheegayaa dadka caanka ee caasimadda magaalada Muqdisho ku jira TikTokerada ama YouTuberada ama si kala saameyn u leh in maalin walba lacag malaayiin dollar la dul dhigo ayuu sheegayaa markaana isagana 20,000 oo dollar sidaas loo soo hordhigay sababta marka lacagta lagu siinayay maxay ahayd ayaa ku soco asheegin ilaa wixii kale صاحب والله بام إني شهرت نيو وحياه وحاجر ورت لقاده كرنا جر موقتها haye مركز صاحب أنا ورت ما خلدمو إليه ورت واخلدم والله بالله بام إني شيء لعبت ويرد هشيسكو قال وهاتن كوريا داك يعني waxay ahayd inaan fuusto leeyahay ma fahantii haye fuustay waa sooraxi way iga gadantay social media way soo gashay صاحب halka lukul ma waxay mataqaana lacagti in liigu cadaadiyo oo ii sheeg waxyaabo kale ii dardaraamay soo gashay ma fahantii sug marka iga tagin muuqaalka laagna sii share garay maanta waa ka yaabin doonaa waxaan ka codsanayaa muddada 10 daqiiqo ama 9 daqiiqo ama 8 daqiiqo in ay la joogtid wax badan ayaa ku bixi doona haddaad hor u aragtay Ashraf iyo qoogaha qaranka la hadalhayo haddaad hor u aragtay dad kale oo caan ah la hadalhayo haddaad aragtay maanta waagi waa kugu bari doonaa laakiin sal fadhiya kaliya ma leedahay haddaan ku cusubtaana jarka subscribe noo dheh haddaa horna la joogtana aad baan kaaga mahadcelinayna soo dhawaada maanta iyo mar kale muuqaal cusub waata daawada ninka halka idin kaga muuqanaya DJ Lusa ayaa la yiraahdaa oo wuxuu ku soo canbaxayba muuqaalo kala duwan inuu sameeyay ayuu ku soo canbaxay markiisa horena nin wadaad ayuu baraha bulshada ku soo galay nin wadaad ah oo dadka wacdinaya furtun balbalaarka iyo cid walba ku dheg ninka odayga marka sidaas ayuu marka baraha bulshada ku soo galay oo magac ayuu halka ka sameeyay laakiin waxa soo baxday kadib marka ninkan maadaama nin wadaad ahaa kadib waxa soo baxday hal marqura inuu isbedelay ayaa soo baxday beedhaba ayuu ka yimid oo markaas ku soo canbaxay Muqdisho ayuu yimid waxa la arkaba ninka oo dhar dhigtay xafladan tag muusigan ka soo muuqdo dheesha ka soo muuqdo dharka ugu dhagan qaado jeega jara waa la yaab marka ninkiiba odagaaba hal mar ayuu dhar dhigtay dadkeena waaga ayaa ku bariyay oo waaba la yaab waxa la yiriba ninkan Soomaaliya nin wadaad oo fartuun balbalaarkii dad badan waani jiray Soomaaliya maxay tahay ninkan jeegada jaranaya dharkan ku dhagan qaadanaya xafladaha ka dhaxneekanaya muusig walba dhex taagan hees walba ka soo muuqanaya waa maxay ayay dadkii hal mar ayaa waa ku bariyay sidoo marka sidaas kaaga jiray oo ninkii la yaabana ayuu marka hal mar sii laba booday oo marka wuxuu keenaba inuu yiraahdaba aniga diintii waa ka baxay diintii waa ka baxay markuu sida yirina dhammaan dadkii caanka ahaa afka ay soo furteen daxdal shaadeen qaxweysta hadeen shaadi sharaf hadeen baabaji hadeen yackow hadeen fartuun balbalaarka hadeen waa la wada yaabay cid walba waxay dhaheen waa ninkan soo ninka wadaadka ma ahayn war maxay tahay nin aayado quraan akhrinayay diinta fahansanaa salaada ku fiicnaa dadkii isaga waaninayay maxay tahay diintu inuu ka baxo wax ku qasbi karaya xilliga marka waa la yaabay kadib marka waxa ku soo xigtaba ninkii odayga ah markii meelba ka soo xirantay dadkii ku kaceen bari bulshada aad loo kacay meel oo lugta lagu waayana inuu taariiba iyo markii maadi inuu oo taariiba haatan kulaaliyeen dalka Spain ayuu ku sugan yahay Spain markuu tagay ayaa marka haatan marka waxa soo baxday inuu afka furto laakiin waxay ku timid inuu marka bambadan weyn oo soo tuuro wax badan oo qariixi waxay ku timid qooqaaga qarankii Ashraf sida ogeedeen saddex habeen ka hor xaflada ay ka qayb galeen xafladaas ayaana marka aad loo hadlayay Soomaali meel bay joogto isla markaana lagu tilmaamay labada nin yihiin qoomuluud lagu tilmaamay lacagana la sii hay'adna fangareeyaan sababtaas marka ayuu ninkan marka haatan soo hadlay wuxuu leeyahayba aniga xilliga Muqdisho joogay 20,000 oo dollarka Mareykanka ayaa la soo bandhigay siyaabo kala duwan ayaana lagu soo bandhigay isagoo fartuun balbalaarka marka uu sheekeynaya sir badan banaanka keenay ila daawad ayaa ku soco asheegin ilaa wixii kale صاحب والله بام إني شهرت نيو وحياه وحاجر ورت لقاده كرنا جر موقتها haye مركز صاحب أنا ورت ما خلدمو إليه ورت واخلدم والله بالله بام إني شيء لعبت ويرد هشيسكو قال وهاتن كوريا داك يعني waxay ahayd inaan fuusto leeyahay ma fahantii haye fuustay waa sooraxi way iga gadantay social media way soo gashay صاحب halka lukul ma waxay mataqaana lacagti in liigu cadaadiyo oo ii sheeg waxyaabo kale ii dardaraamay soo gashay ma fahantii haye lacagti waxa la igu xidhay hadan waxa sameey ma jirto alaashan waxa sadan hadaa sameeysid lacagtada way sii kordhay amal ma jirto sheekadii صاحب markii taas la igu sameeyay wallahi baan idin sheegay anigu aan ka qaatay hatta lambaradooda iska xiri maalmo dhan صاحب ii sheeg
hindhaa la ii shidanaa ani saasaa lagu yeelaa daahir calasool igu soo diray ma agtiina mar oo igu dhegnaa ashraf dj saas waay mar uu dhahay ma arkaynin arkaaniyo ilaa waa ku faa'iidayaa dhiija arrimahaas waa ku faa'iida waa ku baxdayaa war waxaas intaas ka dhaaftid adiga markas ma aragtay horta markaas waa la socday wax dhan waa ogaaday saaxiibkaaga taa kala goodeen ani aa ku waayay qaxwaystadaa ninka waa waasanaha soo arrimihii u gala meel iigu sheeg taleefon igama qabanayo dhegeyso qaxwaysta horta qaxwaysta lajan wuu yahay laakiin caruur waayo qofka hadduu caruur yahayna lama socdo ma ogtahay haye qaxwaysta waa nin aad dhahay niyow lacagtaasaa haayaaye lacagta see u isticmaalnaa markaasuu i dhahay ii sheeg fuusta inuu ii rixo iyo meel iga soo mareen inuu iga soo maruu bilaabo ma fahanti haye qaxwaysta markaas ugu dambeysay laakiin wallahi ana barnaamijkaas baan ku sheegay lacag waaweyn ku jirtay laakiin saaxiib ani wallahi ana hadana ii sheeg bini aadan ahay waa isbedeli karaa moogta ana hadana maskaxdayda wax isku bedeshay in waxaas wax qalad ay yihiin ma aragteen qaxwaysto soomaalida wax ma fahmayaan gruub waxaa jiro oo wejigooda aan la arkaynin madacooda saxda aan la arkaynin adiga waa lagu whatsappkaaga dad caana ku soo wacayaan qofkaas la hadal dhiiluu ku wadaa barnaamijku adi fiir qofka caanka waa istaqaani moogtahay qofkii lagugu soo xiraa waxaa lagu dhahaa dhiiluu ku wadaa barnaamijku ku wadaa qofkaan la hadal qofkii waa la hadlaysaa dhiilkii yaa la saxaysaa waxaa lagu dhahaa waxaas iyo waxaas waa inaad samaysaa qasab horta intaa sameynin adi dhaqaala lagu gelinaa noloshaada lambar 1 qaxwe ande dhiijo waxaa iska bedelaayo dharkaa xiran jirtay meeshaa seexan jirtay waxaa cun jirtay adiga dhan fiyuuskaaga tiktoka hataa wuxuu noqonayaa too much qof walba aduu ku soo raadinayaa qof walba daraamadaadu jeclaana fiyuus horta kii la dhaca wuu kuu kala xirmaa markaas ka bacdi lacagta yaraa lagu siinaa markaa arrinta gudaha u gashid aa lagugu adkeenaa soomaalidii kugu soo jeesato adiga social media dhan kula soo uro oo adiga lagu hadalhaayo meel walba lagugu caynayo lacagta markii lagugu adkay haddii luu siidhaa kan sii samey niyo dad badanaa dhibaatadaas ku dhacda wallahi ani wallahi been ku sheegay maalintii video duubay oo video quraaqas ku soo qoray gaariya xaafada liiga qaaday meesha rabaa dhiigay galabti muqaayadeed waxayga dhan cabada habeenkaas wareegay gaariya liigu waday intii markii wixii iga dhameystay wixii aan sameeyay video aan sameeyay soo baxay saaxiib afuusadi way sii socotay saaxiib باش بحال وحال لو قدرا كسكس لو تجاوبنا مر كسكس مر كسكس لو تجاوبي واحد قادت واحد كان قصب waa qaadanay ma fahanti ma horta lacag waa lagu siinaa ilaa dhawaato balbalaar waxay dhahday lacagtaas ay yuru ku imaatay sax miya ka jawaab su'aashaas waxaas ma imaan been waa bismillah waxaas xaraan waa lacagtaas ilaa igu kuri sax bilaad video waa markaas duubi saxib waa ka shalaya mugta wallahi sax video waa zaid oo shalaya balbalaar wallahi والله فرحية صومالي برنامج كتاجر موجي وسمايا لو دهاي العب في عنا وقادني اوكي وصلت ويلش لعبت وهايسان هذا اني وحجرين واتا والله بالله عقوى وين لو خاتم وانت هذا ها ورصاحب كوان ما حكرتي idinka ma taqaana ninkan cruise dhaya taqaya yaqaan wsb ها وسبي والله صاحب كوان هذا لوقي قلان وسبي wax soo wado wsb kala cag badan bukuwan وانت هذا وسبي فصول ريحهم ارجزي مياه لكن صير صوته قنيسين توعى هبل وقنيس هبل وقنيس نو معايا فيري معايا halkaas ayuu marka xaalka maraya halka ayuu xaalka maraya isla markaana haato wixii ka dambeeyana dadka caanka ee magaalada Muqdisho jooga TikTokerada ama YouTuberada ama cid walba noqotee isha sida ayaa lagu hayaa hay'ado caalami ah ayaa sida u fangareynaya ninkan odagana waa kaas ay sheegaya inuu $20,000 Mareykanka diiday ogaada marka lacagtu waxay ku xiran tahay qof walba caanimadiisa meesha gaarsiisan tahay ayuu ku xiran tahay qaarba 100 loo soo bandhigaya qaarkoodna 200 qaarkood 300 qaarkood 1 milyan ayaa loo soo bandhigaya qof walba darajadu marka social media uu ku joogo ama sida loo yaqaano ayana lacagta marka ku xiran tahay ninkan odagaana haatan bambadaas ayuu soo tuuray haatan markii wixii ka dambeeyay markuu ogaada dadka caanka ah ee caasimada magaalada Muqdisho jooga sida ayaa marka lacag loogu dul taagan yahay ninka odaga marka xogtaas inuu banaankeena wuxuu ku timidna qooqaaga Ashraf oo haatan la hadlayo maxaa kaaga baaxabtaa muhiim muuqaalkana sii share garay